بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد سادة سعوتين نبي محمد صلى الله وسلام عليه وحاو كل شيء وكبر باري مقالة مكة وحاو كل حكر النبي صلى الله عليه وسلم قويس كيسا قرابديسا أهل كيسا يقود هان قويس كي وقد شيء قريش dhexdooda النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ugu dhexnoolaa si mucazaz ah oo muqarrab ah ka hor inta aan loo waxyo nabigeena sallallahu wasallam alayhi nabiga markii lagu soo dajiyay waxyiga oo Allah subhanahu wa ta'ala oo amray inuu xaq cadeeyo fasda' bima tumar uu dhawaaqay qowmkiisa oo dhan wuxuu ugu yeeray in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiis caabudaan oo ay ka dheeraadaan wax kasta oo ka soo haray nabiga kaleey salaatu wasalaam wax kasta oo ka soo haray Allah subhanahu wa ta'ala oo la caabudo arintaas wuxuu ku kasbaday sallallahu wasallam alayhi cadaawad ay kala hor yimaadeen qowmkiisii waxa sidoo kale la dhibaateeyay saxaabatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam intii nabiga rumaysay muddo kadib markay u adkeysan waayeen dhibtii iyo tacdiibkii uga imaanaya Quraysh nabiga kaleey salaatu wasalaam oo soo dhawaaqeen waxaana markaas loo ogolaaday oo loo fasaxay in ay hijroodaan hijradii waxa markaa dhacday dhankaas iyo Xabasho kadibna waxa bilaabatay hijradii Madiina iyo dhankaas in loo jihaysto nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ugu dambeeyay saxaabada iyagoo amray inay baxaan mid kasta oo saxaabada kamid ah oo hijroodayna wuxuu leeyahay qiso cajiib ah asagana gaar u ah waxaan doonayaa mid kamid ah saxaabada radiyallahu alayhim sharafta badan ee maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab ugu noqday in ay diintu anagana soo gaarto hijradii uu hijrooday waa saxaabigii la oran jiray Suhayb ar-Rumi Suhayb wuxuu ahaa nin wayela oo haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala maal uu siiyay nin maal qabayn u ahaa sidoo kale wuxuu ahaa nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu baray xirfada ganitaanka oo waxa la sheegaa hadii uu leebka gano dhulka ma uu sadhici jirin markii uu ka baxayay Makka oo Madiina u socday isbaara loo dhigtay Quraysh isbaara ay u dhigteen maxaa yeelay Suhayb ma ahayn Quraysha asalkiisu Carbeed buu ahaa laakiin kunyada wuxuu watay reer Rum inuu yahay markii uu imaanayay Makka nin wuxuu ahaa faqiir oo haysa Quraysh waa la gartantay waxay ku tiri adigoo faqiir noo yimi maanta waxa doonaysaa adiga iyo maalkii aad naga dhax kasbatay anaga inaad la bixiyo la tagtid waxayna ugu dareen agajugleyn iyo hanjabaad inay isagana dilayaan kana hor istaagayaan hijrada iyo bixitaanka uu doonayo inuu bax Madiina halka markii ay marayso uu la gartamay hadal buu sheegay wuxuu ku yiri Qurayshay horta waxaan haysaa jeedaan nin daah baan ahay waxba idin yeeli mayso inaan idinka idin la joogo waxba idin tari maayo haddaan idinka soo horjeestana waxba muxuu idin yeeli mayso waa mas'alada kale waxaan ahay nin leh xoolo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay xoolahayga qaat ku taga anigana farahayga qaada wuxuu kale u sheegay in uu balan galay balantaas waa iimaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu balan la galay kalimaad baan ku hadlay buu yiri waa kalimada islaam kalimada tawxiid iyo shahaada mana doonayo inaan ka baxo balantaas ama kalimadaas aan ka tanaasulo intaasi waa xaqii garnaqashada dhanka kale uu yiri waad ogtihiin intiina meesha joogtay ninka ugu badiya xagga ramiga iyo laabgelinta anigu aanahay inta kanaanadayda ay ku jirto leeb ay ku jirtana dhulka dhici mayso nin baan idinka galaafanaya markay iga dhamaadaan leebkuna markay iga dhamaadana seeftan gacanta ku qabsanaya inta aan la dagaalami karin waan dagaalamaya idinku qof baadisheen anigu se intaas qof ay idin kala tagi doona sida daraadeed aynu ku heshiino maalkayga qaata gurigaas iyo meeshaas uu yaala la taga laakiin aniga ii ogolaada inaan baxo oo aan hore u sii socdo Quraysh arintaas way garawsatay wayna yeeshay wayna soo siideysay sidii uu ku soo tagay oo ku yimi Madiinada Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam magaalada geeskeedii markuu marayo
oo uusan weli madiine soo gelin ayaa waxaa ka hor yimi abubakar radia allahu canhu. markaas wuxuu ku yidhi rabixa baycuka ya suhayb, baycaagii wixii aad gaday, tijaaradii aad gaday waa maalkii uu bixiyey, waa ku liibaantay, waa ku taajirtay. markaas ayuu wuxuu ku yidhi wabaycuka falaa takhsar, adigana sidoo kale abubakar ha khasaarine, maxaa jir maada? faqaala anzala allahu fiika kada wakada waqara alaaya, ilah wuxuu kuu soo dejiyey sida iyo sidaas. waxaa ilahi subxana wataala markaa soo dejiyey aayaddii wamin annaasi man yashtari nafsahu bitigaaa mardaati illahi wallahu ra'uufun bilcibaad. ay saxaabadu sheegeen in ilaahi subxaana watacaala uu ku soo dejiyey oo isagoo kaga waramaya qadiyadda iyo arinta suhayb radia allahu canhu. qur-aan baa ilahi kusoo dejiyey ficilkiisaas qiimaha badan, maxaa yeelay wuxuu ka tanaasulay adduunkiisii oo dhan, wuxuuna u tanaasulay ilaahay iyo rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. duruus badan ayaa laga faa'iidaya hijradaas suhayb radia allahu canhu. maxaa yeelay qofka muslimka ahi iimaanka iyo caqiidada markuu la yimaado, iltizaamkiisuna uu bilowdo, sidaas hawsha ugu socon maysa. inta badan caqabaad iyo dhibaatooyin badan ayaa ka hor imaanay. caqabaadkaasi mararka qaarkood waxay taaban kartaa caafimaadkiisa, waxay taaban kartaa xoolihiisa iyo maalkiisa, sida suhayb ku dhacday oo kale. mararka qaarkood naftiisa ayuu qofku diintan iyo caqiidadan toosan ku waayaya, ama uu dhimanaya, ama uu dhaawacmaya, ama xabsiba u galaya. sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan ah qofku inuu sugnaado oo ku sugnaado diintaas ilaahay subxana watacaala siiyey. maxaa yeelay qofku inuu diinta haysto adduunkana uu khasiro waxay u dhaantaa 100% qofku inuu adduunka oo dhan gacanta loo geliyo mansab iyo maalba, laakiin uusan tawxiid iyo caqiida toosan midnaba uusan haysan. waxaa duruus laga qaadanaya ka mid ah suhayb, adduun oo dhan waa, laakiin ilaahay subxaana watacaala hel. saxaabadun ridwaanullahi calayhim sidaasoo kale ay ahaayeen. qaar badan ayaa maalkoodii bal ilmahoodii iyo reerarkoodii ka tegey markii u suurtoobi weyday inay nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi madiina ay ugu tagaan. ilahay waxaan ka baryaynaa diintan qiimaha badan ee loo soo rafaaday ee rabbina subxaana watacaala agtiisa qiimaha loogu helayo adduun iyo aakhiraba inuu nagu sugo. waana midda nebigu sal alla alay wasalam ilaahay mar walbaa weydiisan jiray, allahuma ya muqalib alquluub thabbit qalbi calaa diinik. hays oranin iimaan baad leedahay, camal saalixana waa wadaa, xagee ka imaan karaa in ilaahi subxaana watacaala diintan kaa leexiyo oo kale. suuratu naxl ilaahi subxana watacala wuxuu ku leeyay walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun bacda thubuutiha. marka la leeyahay godmaa siibanaya oo tiraraxaya oo goorma? waa bacda maa habatat, markay sugnayd kadib. waa qof multazim ah, meesha ugu fiican ka gaaray xagga iltizaamka. waa ilaahi subxaana watacaala wuxuu sheegaya fatazilla qadamun bacda thubuutiha. khaatimaduna weye acmaasha meesha lagu waxaa miisaan kala saaro, inama alacmaalu bilkhawaatim. nasal allah subxana wataala xusna alkhaatima. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.